L'elenco dei ringraziamenti del premier Giuseppe Conte è lungo. Silvia Romano oo shaacisay in ay qaadatay diinta Islaamka kana sheekaysay sida loola dhaqmay. Silvia Romano oo shalay dib ugu laabatay dalka Talyaaniga kadib 18 bilood oo ay haysteen kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay in diinta Islaamka qaadatay. Silvia oo ah gabar ka shaqeysa samafalka oo November 2018 laga soo afduubtay Kenya ayaa Talyaaniga ka degtay ayada oo xiran xijaab iyo dirac Soomaali taasi oo dhalisay su'aalo ku saabsan inay islaamtay. Waxayna xaqiijisay in sidaasi ay dhacday. Waxay sheegtay in go'aankeeda diin qaadashada uu yimid bartamihii la haysashadeeda isla markaana uu ahaa mid ay si iskeed ah u qaadatay oo aan lagu qasbin. Waxaa la weydiiyay in aan akhristo Quraanka kadibna waan ku qancay anigaana doortay inaan qaato diinta Islaamka oo ma ahayn mid la igu qasbay ayay tiri Silvia Romano oo ay soo xigteen warbaahinta Talyaaniga. Bilihii la haystay waxaan sidoo kale bartay qaar ka mid ah luqadda Carabiga oo ay bareen kuwii i haystay. Waxaan mar walba la isiin jiray kitaabka Quraanka oo aan akhrisan jiray. Silvia waxay sidoo kale sheegtay inuusan jirin wax guur ah ama xiriir ah oo ay la sameysay kuwii haystay. Qaadashadeeda diinta waxay ahayd mid ay ku timid si tartiib ah. Ma jirin wax guur ama xiriir ah oo aan la lahaa kuwii i haystay. Waxaa naga dhaxaysay kaliya is-xushmeyn ayay tiri Silvia Romano. Waxay intaasi ku dartay in sidoo kale loola dhaqmay si wanaagsan isla markaana aysan ku xirnayn qol balse loo ogolaa inay dhaqdhaqaaqdo ayada oo dusha sare laga soconayo. Waxay xaqiijiyeen inaan la idiri doonin balse meelo badan oo kala duwan oo waliba xaafado la degan yahay ayaa la ii wareejin jiray. Muddo kadib ayay tiri Silvia Romano ayaa waxaa la sii daayay habeenkii Jimcaha waxaana sii daysmadeeda ka shaqeeyay sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya kuwa Soomaaliya iyo Turkiga.